dadka kani waa dad xamaasade hayso laakiin maaha dad military trained ah dad ciidannimo loo tababaray maaha waa dad u nacay iyagoo faramadhan inta loo yimaado in birta la mariyo oo la gowraco waayo waxay ogyihiin magaaladii dhammayday isdhibtee bukhaara ahaydba sidii loo galay marka kollayba waa dhimanaysaan bay leeyihin inay idinkoo soo jeeda dhinta waa soo baxeen jinkis khan waa khabiid taagtiyahana 70,000 markay soo baxeen oo u garanaya inaanay ahayn raggii militariga ahaa ee dhabta ahaa ayuu wuxuu sameeyey taktiig dagaal oo ah aan u baqa guuro aan u baqa cararo dadkii markii la isku soo baxayba wuu baqa cararay ciidankiisii wuxuu faray inay baqa carar sameeyaan baqa cararku waa inaad iska dhigto sidii nin jabay oo cararayo oo tegaya laakiin xeelad dagaal buu wadaa ma rabo waa soo baqa cararay dadkii awalba xamaasadaysanana waxay islaayeen wallahi waa kaa gaalkii idiin jabay seeftaa lagala daba cararay waa laga soo daba aguumay ciidamadiisii qaybuu meel sii dhigay dadkii markuu magaaladii kala baxay ee uu gaar ula baxay ayuu kamiinadii xagga dambe ka mareen waxaa laga xidhay xaggii magaalada iyo midadka ay ka heli lahaayeen dabeetana labada dhinac baa askartiisii ka gashay 70,000 madaxa laga jaray 70,000 ee soo baxay 70,000 ba madaxa laga jaray dufca waaxida mar keliya 70,000 oo reer Samarqanda ah oo intoodii iimaanku uu ku jiray wax isbaday ah iyagana la gumaaday maxaa soo hadhay magaaladii buu ku soo noqday markaasi oo go'doomiskii buu ku bilaabay ciidankii 50,000 ee war dagaalama looga taag waayay gudaha ku jiray jinkis khan bay la xidhiidheen waxay yidhaahdeen way isdhiibaynaa laakiin nabadgelyana sii dadka intii kale magaalada ku hadhay way diideen warsaani si maaha baa la yidhi qoladii ciidanka ahayd way ku adkaysatay tataarkuna wuxuu yidhi nabadgelyadaan ogolay dabeetana albaabadii magaalada ay qasab ku subeen qasab bay ku fureen waa askar shacabtana ka adag waa halkii gabayaaga carbeed muxuu lahaa asadun calaya wa fi lxuruubi nacaamatun aniga buu yidhi markaa way arkaana waa libaax dagaal markuu dhacana waa goraya buu yidhi waa cararaya waa askar shacabkan iyo masaakiintanna ka adag halka raggu isku haya marka la taagana calanka cad bay geynayaan dadkii waxay ku qasbeen albaabada in la furo magaaladii Samarqanda ahayd albaabadaa loo furay dabeetana jinkis khan iyo ciidankiisii baa yimi wuxuu yidhi shuruuda heshiiskee nabadgelyada ku helaysaan waxa weeyaan kow hubka soo dhiiba iyo fardaha iyo xoolaha idinkana waxaan idin gaadhsiinayaa dhul nabada iyo meeshii aad rabteen waa ciidankii dee dawladda markaa wuxuu leeyay wixii hub ah iyo fardo iyo dawaab aad rarataan xoolo wixii ah la soo wareejiyo idinkana waan idin geynaya waa idin kaxaynaya dhul nabada meeshii aad doonaysaan baan idin qadabadsiinaya waa rag dee jabay yani fulaha haddii inan yari u hanjabo inanka yar xooggiisu uma muuqdee digdigtiisaa u muuqata waa jabeen nimanka kani maadaama ay jabeen hubkii iyo wixiina waxay idhaahdeen waa kan naga qabo ciidanku wixii uu hub haystay meel buu ka dhigay waa un nidaamkan maantaba la isticmaalay cunaqabatayn ku soo roga hubka laga dhigo yaan waxba laga iibinin waa kan maalinta dambena oo lagu duulaa marka wax walba wakhtiga laga dhigo hubkoo dhan markii uu ka dhigay ayuu magaalada soo galay dabeetana wuxuu amray in raggooda iyo dumarkooda iyo carruurtooda kuwan waxba inaan laga sii dayna la laayo magaalada tan wixii xoolaana la qaado dadkana in la cadaabo ilaa iyo xooluhu halkay ku qarsooyin inta ay ka sheegayaan
dumarka iyo carruurta wixii in la addoonsado la kaxaysto aanu cuntaminee ama weyn ama xanuunsanaya ama kuwaana ma wadwadi karnay hala dilo. jaamica magaalada masaajidka ugu weyn ee magaalada ku yaallana hala gubo. Genghis Khan magaalada tan dhulku la siba. bukhaaro wixii ku dhaceen samarqanda iminkana sidan ay socoto cid muslim oo soo caawisay oo soo kacdayna ma jirin. boqor yaroo waliba wuxuu salaaday adigu dawladdaadii yareyd iyo xuduuddaadii iyo intaadii iyo askartaadii iyo waxaaga waad haysataa. reer hebel baa la laynaya adiga maxaa kaa galay? bale waxaabaa laga yaabay inuu ku farxayo dee dagaallo horay wada galena ways hayeen. waxbaa la yaamin waa wax maanta dunida ka socda une. faluujaa la liqaya inta kalaa daawanaysa, falastiin baa la liqaya inta kalaa daawanaysa, waa nafsi shay. Genghis Khan magaaladii samarqanda la yidhaahdo samarqand ayuu fadhiistay. dabeetana wuxuu yidhi magaalooyinkan iyo layntooda tani wakhti badan bay iga luminaysa. magaalooyinka kan iyo layntooda wakhti badan ayaa iga luminaysa. ee maxaan samaynayaa? 20,000 ee ciidankiisa uu raggii ugu khatarsanaaya ayuu soo saaray. dabeetana wuxuu yidhi dawladda tani jabtay ee waxaan rabaa moxamed ibnu khawaarzim shaah madaxiisa in lay keeno. boqorkii ha laga daba tago, wax kaloo aa eegtaan yay jirin, socda, boqorkii baan idiin dire. isna wuxuu degay samarqanduu iska degay. utlubuuha ina kaana walow tacallaqa bisamaa buu yidhi bay idhaaheen. meel kasta uu jiro ninkaas raadiya, samada hadduu qabsadaha ka hadhina. waa istihzaa bilmalaayiin almuslima. u fiirso, waa 20,000 oo askari. dawladda dhan oo 2-3 magaalo laga haysto intii kale dhexta ayuu u dirayaa. waa caasimaddii waddanka meeshuu ku socdaa. 20,000 baanu u diray marka kan. soo qabta buu yidhi madaxweynihii waddanka. ninkii moxamed ibnu khawaarzim shaah ahaa waa kii cararay. magaaladiisii orjanda la odhan jiray buu tegey. wixii uu ciidan urursan karu urursaday, meeshii buu isu joogay. wakhti yarba intaan la joogin waaba tataarkii oo xiimaya, muslimkii oo dhan soo dhex jeexay, organda maraya. organda waxaa mara nahru jiixoonkaynu sheegayno. webiga markaa dhankiisa galbeed bay magaaladu ku taallaa. dabeetana webiga sad weyn buu leeyahay, yacni wuxuu leeyahay biyo xidheen weyn ayay meesha ka samaysteen. 20,000 askari oo yaacayo tataarka ahaabaa soo galay. dhinacii bari bayse soo taageen. wabaa ka xiga magaaladii. say u tallaabi doonaan? qolada tani waxay arkaan mar haddii webigii weynaa dee meesha ka xiga inaan cidina doonyana ma joogaanoo meesha wixii yaallay waa laga qaaday. lama rajaynaya in cidi ka soo tallowdo. taktiik military bay nimankanina isticmaaleen. markay meesha yimaadeen waxba waayeen, looxaan bay dhiseen. dabeetana harag bay ku dahaadheen. loox xeedhoo kale la sameeyey. harag baa dabeetana lagu dahaadhay. wixii qalabee ka qoyayay oo dhan baa lagu guray. dabeetana fardihii baa laga daadegay. faraskaa webiga lagu ridayaa. ninkana farasku dabada qabsanaya. looxan weyn iyo waxaana gacantu ku qaadaya. farduhu waa dabbaal yaqaanin. faraskaa dabbaalanaya oo ka tallaabaya. askariguna faraskaasuu dabada haysanaya. askariguna wuxuu gacanta kale ku haynayaa. bahashan dhan buu jiidayaa. looxan dhan ee alaabtu saarantuu jiidaya. nidaamkaasay kaga tallaabeen. 20,000 askari iyo qalabkoodiiba xagga shishaa loo tallaabiyey. intii waxaanoo ciidani soo tallaabayaan xaggee lagu maqnaa? dawladda mukhaabaraadkeedii miyaa la hurday? sidee wax ahaayeen? lama garanayo. moxamed khawaarzim shaah iyo ciidankiisii wuxuunbay indhaa kala qaadeen. nimankii ciidankii tataarka oo ka soo tallaabay webigii
oo dhankii kala taagan. moxamed khawarzim shaah markuu ogaaday in la soo tallaabay koox ciidankiisii ka mida iyo waxbuu kaxaystay, waa dhaqaajiyey, waa ka baxay magaaladii. isagoo aan waxba eegin ibnu athiir wuxuu leeyahy waraxala moxamed khawarzim shaah laa yalwi calaa shayin fii nafarin min khaasati, cidna isagoo aan dib u eegin waxoogaa yaro kooxdiisii u kaxaystay, dabeetana wuu baxay. wuxuu qabtay nisabuur. nisabuur waxay ku taallaa koonfurta arjanda ayay ku beegan tahay. maadaama uu cararay ciidankiina, madaxdu de hadday kaa carartay ciidanka intii kalena waa iska kala yaacday. laakiin 20 kun ee askari nidaam ayuu ku soconayay ninka jinkis-khaan la yidhaahdaa, awaamirta sideeday u fulinayaan. ma odhan magaalooyin gala cid qabta aniga ninkaa ii doona bay yidhaahdeen. ciidankii markuu kala yaacay ninkiina uu baxsaday, magaaladii may eegin, odaygii cararay bay ka daba tageen, magaaladiina waa iska dhaafeen. madaxweynihii waa rooray, wuxuu rooraba magaalada naysabuur la yidhaahdo oo koonfur ka xigta ayuu yimi. kooxdanina waa ka daba timi, waxba may dilin, waxba may boobin, waxba toos bay u socdaan. muslim tiro badan bay dhex marayaan. muslimka laftiisiina waxay is idhaahdeen waar baladan haddii ilaahay idinka badbaadiyo baa isku taataabin iyana haydin dhaafaan, iyana cidna ma taabtaan, muhiimaddooday u socdaan. dadkii iyo askartii iyo wixii kale meel kaga soo horbaxaana nimankan aan idinba taabanin, idana ha taabanina la yidhaho jidkaa loo baneeyey. jidka markii si fudud loogu baneeyey odaygii bay daba jabacsadeen. intii aanu ciidanba urursanin ayaa warkuu soo dhacay ee odhanaya naysabuur nimankii waa dul taagan yihin. 20 kun ee askar oo xiimaya naysabuur bay joogaan. markuu warkaa maqlay madaxweynihii waxoogaagiisii intuu urursaday ayuu maazandaraan magaalo la yidhaahdo taw ugu siiyey. waa ka baxay tiina, waa eeraan oo magaalo ku taalla. naysabuur markayse soo taageen baa la yidhi madaxweynihii waa baxay, kumay weecan magaaladii, odaygii bay ka daba tageen. magaaladii iyana waa iska dhaafeen. madaxweynihii sidii u ordayey wuxuu soo galay magaalo rayi la yidhaaho, waa dhanka bari buu markaa uga kacay. markii hore arjanda buu ka yimi, naysabuur oo koonfuruu yimi, bari buu u jeexay. haddana wuxuu qabtay markaa magaalo rayi la yidhaahdo. ray markuu yimi ayaa loo sheegay nimankii inaanay magaalooyinkiiba ku hakan, cidna laynin, ay daba socdaan. waa dhaafay iyana. hamadaan buu usii kacay, waa magaalo kale oo eeraan ka mida iyana. nimankii tataar waa yimaadeen, waxaa la yidhi duqii hamadaan buu ugu tawsiiyey, waa ka daba shubeen. magaaladii iyana kumay weecanin. waxa ay magaalo marayaan ciidamo muslimiina jooga, dad muslimiina jooga, waa ummad muslima, waa madaxweynihii ninkan la eryaya. laakiin baqihii dadkan galay iyo warkii labadaa magaalo dadka siduu u soo gaadhay cidiba xaggan faraha u fiiqi mayso. waa loo baneeyey jidka, iyana waa ka daba tageen. hamadaan isagoo jooga ayuu maqlay nimankii haddana inay weli soo socdaan. rayi buu ka soo baxay, hamadaan buu joogaa. maazandaraantu markii hore ka yimi ayuu dib ugu kala fireeyey. maazandaraan buu dib ugu noqda, iyana waa ka soo daba laabeen. wuxuu maqlay nimankii haddana in yar bay kuu soo jiraan. waa carara. madaxweyne waddankiisii weli haydan sii ka cayaaraya. maxaa la yidhaahdaa baashan dhuumashada iyo soo helitaanka. waa baxsada. baxsadkii wuxuu qabtay gobolkan la yidhaahdo tabristaan. tabristaan waa gobolka ku xiga ghazwiin, baxru ghazwiin, baddan yar ee ghazwiin la yidhaahdo. gobolka ku xiga muslimiintu degi jireen baa tabristaan la odhan jiray. gobolkaasuu ta ugu siiyey. dabeetana waa ka soo daba baxeen. wuxuu gaadhay baddii,
badda markuu tegey ayuu doon fuulay dabeetana jasiirad yaroo badda bartankeeda ku taalla ayuu degay siday u soo eryayeen bay xeebtiisa soo taageen nasiib darro dee wuu ka baxsaday iyo nasiib wanaag mid ay tay garan maayo boqorkii lama hayo meeshii markayse soo taageen dee tani webi maahe waa bad markaa dib bay uga laabteen boqorkii meeshii waa ku busaaradsaday waa ku cidlaystay waa ku fool xumaaday waa baahaday waa ku baktiyey waa dhintay addawla alkhawarzimiya ninkii ka talin jiray kafan baa loo waayey furaashkuu ku seexan jiraa lagu aasa addawla alkhawarzimiya ee dhanna jayna dacalkeeda joogta dhanna ciraaq dacalkeeda joogta dhanna baxru ghaswiin joogta dhanna nahru sind ayay joogtaa bakistan afghanistan istaan oo dhan nahru sind webiga la yidhahdee mara gobolkan sindi la yidhaahde ku yaalla bakistan intaa waddanka leeg ninkii ka talinayey kafan baa loo waayey furaashku ku jiifaa lagu aas aynamaa takunu yudrikkum almowt walow kuntum fii buruujin mushayada meel kastoo aad tegtidba geeriyi way ku haleelaysaa addawla alkhawarzimiya haddaan in yar dib ugu noqdo moxamed ibnu khawarzim shaah wax cajiibaa ka arki doontaan maddaan isaga taarikhdiisa in yar ka warramo 21 sannadood iyo weliba bilo ayuu waddankaasi ka talinayay 21gaasina uu ka talinayey boqortooyadiisu way sii ballaadhanaysay boqortooyooyinkii yarraa ee agtiisa ka jiray oo dhan wuu baabi'iyo isagu isku soo hoos daray min ciraaq ilaa turkistantan hadda uu qaybta haysto china ilaa ciraaq inta ka dhexlay dowladdani ahayd afghanistan buu xukumi jiray qayb indiya ka miduu xukumi jiray sajastan buu xukumi jiray maxaa la yidhahdaa karmaan oo bakistan qayb ka mid ah buu xukumi jiray tabristaantaynu ka warramayno waxaasoo dhana buu haystay ninkan xaalkiisu siduu ahaa ninka kani shakhsi ahaan cibaadiya maamulba uu ku fiicnaa baa la yidhahaa bal u fiirsada waa wax cajiiba arki doontaane waxay yidhahdaan wuxuu ahaa nin sabir badan oo dhibaatada u adkaysi badan oo socod badan oo aan raaxo jeclayn oo bidhbidhka nololeed aan u jeedin laakiin madaxnimo hunguriyuu hayo madaxnimada aada ugu adag boqortooyadana ilaashada shakhsiyadiisa qof ahaan waxay ku sheegaan inuu ahaa nin cilmi lahaa oo culammada sharfi jiray oo cilmiga jeclaa oo majaalistiisa cilmiga la fadhiisan jiray oo ahlu cilmiga ka barakaysan jiray oo la noolaan jiray oo haddaa xaggayda inkaartu kaga dhacday isagu shakhsi ahaan waxaa la leeyahy nin cibaadaysto caynkanoo caynkana buu ahaa maamul ahaan waxaa la leeyahy nin dowladdiisiiyo wax ilaaliyo si fiican u maamulo buu ahaa waxay yidhahdeen mashkiladiisu wuxuu ahaa siyaasi hinaasiya buu ahaa madaxa in cid kale kor u qaado baanu oggolayn keligii talis keligii inuu taliyo walidaalik ayaa ibnulahir wuxuu leeyahy وكان قد استولى على البلاد وقتل ملوكها وأفناهم وبقي هو وحده سلطان البلاد يعني wuxuu tilmaamayaa ninkani buu yidhi dhulkoo dhan buu qabsaday boqorradii kale iyo madaxdii kale oo dhan buu laayoo gumaaday keligii baa meesha u hadhay markii isaga tataarku jebiyeen buu yidhi lam yabqa fi lbilaadi man yamnachum walaa man yuxmiiha haddaan si kale u tilmaamo waxa weeyaan aniga mooyaane madax kale yay jirin buu taagnaa madaxdii kale iyo wixii kaleo dhan buu dhulka la simay isagu markii uu jabay qisatu tataar oo min mongolia ilaa kiivna waa layga rabaa inaan ka warramo inta ka dhexlaya si loo qabsaday wakhtigiina 10 daqiiqa ka hadhay marka aan soo koobo waxaan odhan karaa dadka muslimiinta ah
dhibaatadii dhexdooda taallay baa jebisay, midnimo la'aantii baa jebisay. dabeetana intii kale markuu gumaadayay isagoo qura soo hadhaya, isagu markii la jebiyeyna wax ka dhiciya waayey. halkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam siyaasaddiisu ahayd meel kasta oo dowladdii nebi moxamed ay tagto madax muu bedelin nebigu calayhi salaatu wasalaam. manaahijta iyo maamulka qaabka loo wadunbuu wax ka bedeli jiray, laakiin ma jiro reeruu suldaankiisa casilay, boqoruu meeshiisa ka qaaday. wixii uu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dhulku qabsaday ma jirin nin madaxoo meeluu haystayba uu ka qaaday, laakiin wuxuu bedeli jiray uun qaabka wax loo maamulayo iyo siday wax u socdeen. ciidankii yaraa ee 20,000 ahaa dib bay u soo laabteen. ciidankaas iyo samarqanda 650 kilomitir baa u dhexeeya intay jareen ee ninka ay eryayeen. caalamka muslimka ee ballaadhan bay iska soo dhex marayaan iyadoon cidina taabanaynin, waayo muslim nafla baan marka meesha joogin. waxay ku soo noqdeen magaaladii mazandaraan lo odhan jiray, dabeetana magaaladii bay qabsadeen iyadoo magaalo xasiin ahayd. mazandaraan waxay ka mid tahay magaalooyinkii aan cahdigii cumar markii bershiya uu furtay oo dhan mazandaraan muslimiintii saxaabadu way furan kari waayeen. waxaa la yidhaahdaa waxaa la furtay casri اlumawiyiin, maxaa la odhan jiray, sulaymaan ibn cabdilmelik wakhtigiisii baa la furtay. yacni magaalo qalcada aad u adag labay ahayd. haddana dadku markuu qalbi ahaan jabo 20,000 ninkaa soo waayey baaba soo cagmariyey, ayaa gacanta soo mariyey. mazandaraan iyagaa qabsaday. dabeetana dib bay u soo noqdeen. waxay ku soo wecdeen magaaladii ray la odhan jiray. ray markay ku soo socdeen dhexda waxay ka soo heleen ninkii madaxweynaha ay eryayeen hooyadii iyo waxoogaa carruurtiisii iyo dumarkiisii ka mida bay meel dhexe ka heleen. intiina intay maxbuusnimo u qabteen bay u direen. waa 20,000 waxaan sidaa wax u wadaa. maxaabiis intay ka dhigeen bay waxay u direen jinkis khan. magaalada rayi bay yimaadeen. markay rayi yimaadeen iyana cagtaa la mariyey. tuulooyinkii ku dhadhowaa baa la yimi, iyana cagtay soo mariyeen. waxaa la yidhaahdaa khaswiin magaalada la yidhaha markay yimaadeen 40,000 oo qof bay madaxa ka jareen. waxay soo galeen azerbaijan, gobolkan la yidhaahdo azerbaijan bay iyana cagta mariyeen. magaalo tabriiz la yidhaahdo bay yimaadeen. tabriiz waxaa haystay bay yidhahdaan nin madaxoo khabriyo cabiska ahaan jiray oo ozbik ibnulbahlawaan la yidhaahdo. lacag iyo maryo iyo waxbuu kala hortegay. waa 20,000. dabeetana wuxuu yidhi ammaanna siiya intan qaato. waa ka aqbalayna waa iskaga tageen. waxay yimaadeen magaalo tabriiz la yidhaahdo. reer tabriiz waxay yidhahdeen dagaal baanu ka xignaa. dagaal bay u soo baxeen, jihaad bay iclaamiyeen. qolada tani waa khatar bay yidhahdeen, ayna dhaafiya. waa iska dhaafeen. armeniya iyo georgiya bay tageen, cagtay mariyeen. waa dhaafeen. waxay tageen magaalo la yidhaahdo qabiilkan kurjka la yidhahdo. kurjigu waa kuwan iminka georgiyanka la yidhaahdo. cagtay mariyeen. waa kristan qabiil ah iyo wathaniyiin bay isugu jireen. kuwaasna cagtay soo mariyeen. magaalada tiblis la yidhahdo ay cagta soo mariyeen. waa soo dhaafeen. sanadkaasi ah 617 ayuu wuxuu ka dhigay khuraasaan oo dhammi inay bilaa dowlad noqoto. khuraasaan iyo khawaarzam labada gobole la yidhaahdo. khuraasaan waxaa la yidhahdaa waa gobol eeraan waqooyigeeda, eeraan berigeeda iyo waqooyiga afghanistan intaasoo isku baxsan ba khuraasaan la odhan jiray taarikhyahanadii hore. waa meeshay ku taalla magaaladan la yidhahdo balkh iyo marwe iyo naysabur iyo haraat iyo ghazne iyo waxaasoo dhammi. dhulkaasoo dhan buu soo maray oo wada qalaac xasiin ahaa. maadaama wakhtigu iska gebageba yahay, bal maanta halkaasaan ku joojinaya. wallahu aclam wabillahi tawfiiq.